runtii aniga iyo reer Puntland waxay u tahay farxad in aad Australia ay ka yimaadaan tiimam noocaana Australia oo ah meesha hadda noogu fog dadka qurbaha jira runtii waxay tahay iyada naftirkeeda ee si gaar ah loo xuso Europe iyo Mareykanka oo ka dhow wili loo imaan marka inay Australia markii saddexaad ama afraad imaanay Soomaaliya waxaan filayaa waa wax u baahan in looga mahadiyo lana xuso waxaana filayaa dowrkaas waxa iskale odayaasha jaaliyadda oo gartay in ay isku xirnaantii maadaama ay meel aad u fog joogaan laakiin isku xirnaantii dadkooda aysan marna go'in aad baan uga mahadcelinayaa maamulka haddana la joogay inta maqan oo ka qayb qaadatay waan ogahay haddii waalidiinta ay gacan ka heli lahayn jaaliyadda abaabushay way adkaan lahayd ruuxadeeda inay ku qanciyaan dhallinyaradooda inay Soomaaliya soo aadaan marka reer Australia waxay mudan yihiin ammaan gaar ah waan ku faraxsanahay maanta inay Puntland iyo Soomaaliya sports oo soo noolaado waxay tusaale u tahay nabadii oo kobcaysa xilliyadii burburka badnaa jiray waxa aad u adkayd in laga fakaro ciyaaro iyo waxyaabo dhalinyarada soo jiita laakiin maanta waxaad moodaa in isbedel weyn guud ahaan geeyiga Soomaaliya ka jiro gaar ahaan Puntland danaynta la danaynayo horumarka sportsku inay qayb weyn ka tahay dawladana iyadoo dadkeeda ka jawaabaysa baahidooda iyo dareenkooda waxaan aad ay isugu hawshay sidii loo horumarin lahaa dhinaca sportska waan ka jeclayn xilli ay barnaamijyadaas dhamaadaan inay ku soo beegato laakiin marka dambe aan rajaynaynaa garoon gaalkacyo dhismihii waa ku socda kan garowana dhismihii waa socdaa kan boosaasana bil gudaheed hadda waxaa lagu jiraa final stagekii designkii iyo howlihii isna wuu bilaaban doonaa sanadkan gudihiisa saddexdaas inta uusan dhammaan ayaa noo qorshaysan sanadka xigana kuwa kale ayaa noo qorshaysan haddii lahayd waan ku faraxsanahay maamulka wasaaradda iyo hawsha sida isugu xilsaarayaan Bashir Focus oo ciyaartooy hore ahaa khabiir ciyaartan aan ka dhex bixino intii hadda dambana coachka dalka Qatar basketballka ahaa iyo Shiimad ruuxadiisu ciyaartooydii hore ahaa dadku inayna aqoon dhici karta isaga ruuxadiisu uu ahaa dadkii basketballerkii hore weeye runtii dad badan oo ciyaaraha magac ku lahaa oo intii dambe dibadaha jiray ayaan rajaynaynaa inay dalka ku soo noqdaan ruuxadooda qayb ka qaataan waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa sports kaliya inaysan ahayn tiimka oo tiim caafimaad oo la socdo oo weliba charity ay sameynayaan iyaga ka soo baxay dhinaca jeebkooda waa runtii iyadana arrin qiimo weyn leh waan rajaynayaa fursadaas Puntland heshay jaaliyadda Australia ay heshay inay
wixii ay dareensanaayeen dareenkii ahaa inay dadkooda u qabtaan ay heleen meel ay wax uga qabtaan in uu si hufan u fulo oo safe ah dabcan dariiq dheer baa maraysaan ciladaha aan inii sheegay waxa kamid ah inkastoo hadda gacanta lagu hayo dalkan 30 sano ayaan dawlad xoog leh oo infrastructure ka shaqeysay aysan jirin dadku waa dadaalay guryahooda iyo meheradooda waa ka shaqeysteen laakiin waxyaabaha caamka ah wali dawladdu waa dhutiraysaa waa sida arki doontaan oo jidadku waa jidad laga dhaxlay intaan dalku burburin marka burbur badan ka jira xagga jidadka roobkii ugu dambeeyay waliba dhaawac badan ay gaarsiiyeen wadada Garowe Boosaaso inkastoo shirkadii dhisi lahayd ay bilowday shaqadii oo hadda preparationka iyo dhismihii qaybtiisa ay wado marka ina taana la aragtaan ruucadda fiican tahay laakiin marka dambe soo noqotaan waxaan rajaynaynaa Boosaaso gaalkacyo jidadka in rehabilitation uu sameeyna qorshayaashu waa socdaan waan rajaynaynaa sanadka dambe inay dardar badan galaan hadda mid waa la bilaabay kuwa kale tan inay bilowdaan baan rajaynaynaa December ama January horaanteeda hadii ilaahay ka dabcan dhinac waa faa'iido marka soo tageyseen waxa ku soo talagasheen meel baabaasan oo adag marka inta naga heshaan wax fiican bay noqonaysaa hadii aad wax fiican naga filayseen oo meel baabaasan oo timaadana dib ahaan la marka hadda waxa u maleynaa difaacin waa fiicnaa marka walwal badan ma leh oo meeshaas ay xareysaan iyo baabuurta raacisaan perception gas meesha joogteen meel ka fiican aragtaan taas anagana firkeena faa'iido noo ah waxaan filayaa af Soomaaliga kuma hadashaan laakiin waa fahamtaan Soomaa ya marka waxa ku adag inaad wax badan ku hadashaan laakiin fahamku waa fiican filayaa hadii aad translation u baahataan waa gartay marka soo dhawaada waa dalkiini waa dadkiini dabcan waxa ku jirtaan xilli isdhexgal iyo dalbarasho iyo farxad iyo jiilasha aad la joogtaan naftirkiina inaad u warantaan deegaanadii aad ka timaadeen iyo sida ay yihiin iyo inkastoo hadda adduunku isku soo dhawaado oo dadka gudaha jooga xataa social media wax badan uu ka taray isdhexgalka dadka laakiin waagi horeeto in loo suureeyo xataa waa adkay dadka dibadda sida looga noolyahay laakiin hadda dhalinyarada halka joogto waxaan maleynayaa naftirkooda had joogaane qayb badan baa war badan ka haysa waad moodaa inuu aad u soo yaraanayo hamigii tahriibka dhalinyarada waa ay dhexdaasa tahriib baa xoog badan ku hayay oo dhul aad u adag oo saxara ah iyo Liibiya iyo badahaas lagu baabi'i jiray wacyigaas runtii aad baa dawladda iyo dadku ugu dadaaleen isbedel baa ka muuqda inkastoo wali uusan dhamaan dabcan caqabadaha dhinaca shaqo la'aanta waxa weeye waxyaabaha dhalinyarada ku xambaaraya inay hijroodaan waa caqabad jirta weeye oo aan karayno laakiin kulley dawladahan dadaal badan aan ku jirnaa in deganaanshaha iyo shaqo abuurku ay xoogaysato waan rajaynaynaa hadii Ilaahay noo in wax iska bedeli doonaan marka dabcan soo dhawaada waan ku soo talagasheen in laga badiyo ina badisaan marka hadii laga badiyana dib ma leh kooxda xabsi ku jirta iyagu training badan bay qaadaan meel ma aadaan ma ogtahay marka waa niman meel ku xiran way marka waa la garan karaa inay naga badin karaan marka insha Allah waan rajaynayaa hadii Ilaahay noo fursad fiican ay ahayd inaad soo aragtaan xataa xabsiyada waan filayaa inaad ka soo hesheen yani facility-ga iyo sida ay tahay markii labaad aragtaan Soomaa runtii dad badan xabsiyada dalal badan oo Afrika ka fiican in xabsiyada Puntland ku yaal xaqiiqada marka loo hadlo very standardka iyo sida wax yihiin xabsiyada waaweyn ee Qardho iyo Boosaaso iyo Garowe aad bay maaragtay u fiican ay sida waliba waqti badan inuu helin baa dhici karta training waxay sameeyaan xataa waxyaabo activity oo dhinaca farsamada gacanta iyo waxyaabo badan ay sameeyaan marka aad u mahadsantihiin soo dhaweyn fiican inaad heshaan waa rajaynayaa wasaaradda iyo agaasimaha iyo inta inagu howlan waan uga mahad celinayaa runtii
annagoo dad iska mashquulsanayn laakiin korka in lagala soconay oo annaga baafa si gaar ah looga yaqaana meesha marka isaga representation in yaa maartay safiirkiina isaga oo aad loo yaqaana marka isaga reer Puntland marka idinka hadalka joogtaan dadka kale waa uu ka badsadaa imaashaha iyo dadka aqoontiisa waa rajaynayna ruuxadeeda inuu qayb ka qaato inuu inagu soo dhaweeyo halka meelo badan waa in marmarin doona hadii ilaahayno marka dabcan xilliga waxaan filayaa xilli barwaaqo ah wayso weli baadiyaha lama geena umarina magaalooyinka lagu wareegay ya ay tageen miya ma baadiyahana mar la geeyo meelo waxa jirta ya caana geeliya la soo siiyo baadiyaha u dhiganay meelo iska magaalada dhan habeenkii iska baxda magaalada banaankeeda in la geeyo way fiican tahay oo camping ka yaqaanaan iyaga night camping dab in loo soo shido way sameeyaan western ruuxadooda waa jecel yihiin marka is good inaad maaragtay dabcan dadka jiinka Soomaalida waxa qurquruxa badan jecel laakiin mujtamacaadka kale markay yimaadaan adventure way jecel yihiin Soomaa marka meelaha adag inaad tagtaan naftirkeeda waa qayb ka mid ah inaad maaragtay maskaxdiinu ay fursad hesho ay ku fakarto oo waxa jira ay arkaan oo xaaladaha ay ka warqabaan wax qurux badan la ina aragtaan sax ma marka taa naftirkeeda in la yaabo ma marka aad u maasantihiin soo dhawaada waa inta ka Thank you.